daawade haddii aad horay u maqli jirtay xaflad aroos, xaflad dhalasho iyo xalfad siyaabo kale loo dhigay, tani way ka duwan tahay. waa xaflad cajiib ah, waa xaflad loo dhigay gabar la soo furay, waana wax ku cusub dhaqanka Soomaalida. xafladan loogu dabaaldegayo furiinka gabadhan waxaa ka soo qayb galeen hablo aad u fara badan, kuwaas oo hees qiiro badan niyadda ugu dhisayaan ayagoo sacab iyo alalaas ereyada heesta isla wada jiidinayo. xafladan loo dhigay gabadhan la soo furay waxay ka dhacday Garowe, Puntland. sidaad muuqaalka fiidiyowga hoos idinkaga muuqata aad ku wada aragtaan daawadayaal, waa xafladii ugu yaabka badneed oo ka dhacday magaalada Garowe ee Puntland, taasi oo loo sameeyay gabar la soo furay. waxaana ka soo qayb galeen qaar ka mid ah reerka ay ka soo jeedo gabadhan la soo furay iyo asxaabteeda, ayagoo hees ay u soo xuleen niyadda ugu dhisayaan, waxayna isla wada jiibinayaan midhaha heesta ayagoo leh qabri baad ka soo laabatee qaadir mahadiidhe. haddaba daawade fikradaada qaybta hoose ee commentiga inoogu reeb. sideed u aragtaa in gabar la soo furay loo dhigo xaflad? waad ku mahadsantahay daawashada aad daawato muuqaalkan daawade. haddii ay tahay booqashadaadii koowaad ee janalkan aad ku timaado, fadlan subscribe saaro, furana gambaleelka si ay kuu soo gaaraan barnaamijyada aan halkan kusoo baahiyo. mahadsanid.